madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Yufdu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Wafdiga ayaa waxaa soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan. Si weyn ayaa loo adkeeyay amniga magaalada Beledweyne. Ujeedada wafdiga madaxweynaha u yimid magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka hadlay afhayeenka madaxtooyada Daawud Aweys. federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ujeedka safarka waxa uu yahay ama uu qayb ka yahay dadaalada dawladda federaalka oo madaxda sare ay horkacayaan ee ku aadan in la xaqiijiyo in labadan gobol ee Shabeelle Dhexe iyo Hiiraan ay sameystaan maamul ama dawlad goboleed loo sameeyo. dadaaladaasi meel fiican ayay marayaan waxaan filaynaa in goordhow la guda gali doono dhamaystirka howlahaasi muhiimka ah ee ku aadan in labadan gobol ee Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe ay sameystaan maamul. sidaad ogtiin maamulku waxa uu muhiim u yahay arrimaha nabadgelyada, arrimaha dhinaca amniga, arrimaha dhinaca horumarka. haatan sidaad la socotaan dagaalo ayaa ka jiray deegaanada Puntland iyo Galmudug. intuba maamulada halkaasi ka jira waxay ku guuleysteen in ay cadowga ka adkaadaan, waxaana taasi sabab u ah jiritaanka maamulka halkaasi ka jira. dawladda federaalkana way u fududaatay in ay maamuladaasi kala shaqeyso sidii arintaasi wax loo qaban lahaa. Shabeelle Dhexe Hiiraan kama duwana. muhiimadda ugu weyn ee la doonayna waxa weeyaan in la helo isku xir wanaagsan oo horumarka iyo danta dadka degan goboladani loo heli lahaa, maadaama maamulka marka la helo uu noqonayo isku xirka amaba aasaaska horumarka la doonayo in la gaaro ha noqoto dhinaca nabadgelyada, ha noqoto dhinaca dhaqaalaha, ha noqoto dhinaca in wax laga qabto dhibaatooyinka dadka soo darsa. madaxweynaha Yufdigiisa ayaa waxaa lagu waday inay kulamo la qaataan inta ay joogaan magaalada Beledweyne. ogaasyada iyo waxgaradka deegaanka ku aadan in dadka lagu qanciyo